Santiago Bernabeu. xidig reer Belgium waxaa la wada ogyahay in qalinka ugu doogay Real Madrid heshiis gaaraya ilaa iyo 5 sano waana saxiixii ugu weynaa Real Madrid ay sameeyso tan iyo 2014 markaas oo ay la soo saxiixdeen ciyaaryahan James Rodriguez. haddaba aynu eegno 5 arrimood ee laga sugayo ciyaaryahan in Hazard marka Real Madrid uu soo cagarigto. Which he does, and in so doing to brighten up his own personal campaign, and he's done it. The back heel for Hazard, takes on Borax and scores. tan koowaad waa soo laabashada kalsoonida kooxda kadib sanado ay kooxdu ku jirtay guulo taariikhi ah oo tartanka Champions League. Real Madrid taageerayaasheeda ayaa u muuqanaya kuwa kala dhuuntay xilli ciyaareedkii aynu soo dhaafnay kadib guuldarrooyin xiriir oo kooxda soo gaaray, 2 tababaro oo kooxda loo dhiibay isla markaana guulo gaarsiin waayay, bixitaankii Zinedine Zidane ee kol hore, bixitaankii Ronaldo ee kooxda Juventus uu ku biiray, dib u soo celinta Zidane oo hadda u muuqanaysa mid kooxda dib loo dhisayo. wax walbaba hadda waxay weeyihiin in Hazard uu gali doono booskii Ronaldo inkastoo CR7 booskiisa uusan hal xidig buuxin karin maadaama uu yahay xidig 2 xidig xitaa ka wanaagsan. tan labaad waa inuu dhowraa sharafta kooxda isagoo aan ku tuman karin lacagta laga soo bixiyay. mudada Real Madrid ayaa suuqa kala soo wareegan xidig weyn iyadoo taageerayaashu ay loobeen caadadii madaxweyne Florentino Perez ee keenista xidigaha waaweyn ee Galacticos. maadaama xidigihii waaweynaa ee kooxda la keenay ay taariikh weyn ka sameeyeen isla markaana ay horay ugu guuleysteen koobo badan. ta saddexaad waa in dhiig cusub lagu soo saaro kooxda Real Madrid. marka uu kooxdu ku soo biiro waxaa la filayaa in xidigaha oo dhami ay dareemi doonaan in Hazard uu kooxda yimid. waxaa si weyn hoos ugu dhacay qaab ciyaareedka xidigaha kooxda Real Madrid taasoo lagama maarmaan ka dhigtay in xidig cusub lagu soo daro si Hazard oo ah kan hadda kooxda ku soo biiraya uu u xoojiyo moraalka kooxda dhig cusubna ugu noqdo safka Los Blancos. arrinka afraad wuxuu yahay saxiixda dhanka shaxda. Hazard ayaa awood u leh inuu sameeyo wax walba uu ka doonayo in garoonka uu ku dhex qabto sida gooshmada, caawinta, dhalinta goolasha inkastoo uusan aad u dhalin badnayn. waxa uu ka weerartagaa labada garbood, lambarka 10aadna waa midka aad uu jecel yahay. sidoo kale 9ka beenta ah ayaa badi loo isticmaali karaa sida haddaba Chelsea isagoo ka tirsan horey loogu isticmaalay. 5 waxaa laga doonayaa Hazard goolalin sababtoo ah xidiga ugu horeeya ee kooxda waa mid mar walba laga sugo inuu gool dhaliyo. waa midda ugu muhiimsan ee laga sugayo Hazard marka laga hadlayo xidig reer Belgium kaasoo hadda ay sabab ka dhigi karto in taageerayaasha Real Madrid iyo CR7 inkastoo la isku raacsan yahay in Ronaldo hal xidig booskiisa aan lagu buuxin karin balse Real haddii Ronaldo booskiisa ay buuxinayso ay u baahan tahay inay kooxda ku soo darto Hazard, Pogba, Mbappe, Neymar iyo kuwa kale oo badan kuwaasoo guud ahaan marka awoodooda la isku daro lagu qiyaasi karo Cristiano Ronaldo. inkastoo Hazard uu yahay xidig xariif ah haddana cidi shaki kama gelin karto in Ronaldo uusan booskiisa hal xidig buuxin karin sababtoo ah dhalinta goolasha, dadaalka, moraalka uu xidigaha siin jiray iyo weliba sida loogu kalsoon yahay kulamada waaweyn. ma jiro xitaa xidig loogu kalsoonaan karo oo hadda kubadda cagta ciyaaraya. On the prowl again. What does he do? Does he feed him for the hat-trick or does he take it himself? He takes it himself.